ciidamo Ethiopian oo cusub oo ka qayb qaadanaya dagaalka dawladda Soomaaliya ee qorsheynayso in ay kala hortagto al-shabaab oo ka soo gudbay xadka Dolow. ciidamada Ethiopia gobolka Deg goob fara badan bay ku joogaan oo ay ka howlgalaan waxay ka mid yihiin ciidamada Afrikaanka oo dalka Soomaaliya ka howlgalaya waana dawladda daras aan nahay soo gudbitaankooda iyo socodkoodana ma ahan mid cusub ciidamada loo qaadganayso xuduud intay u jirto 70 kilomitir bay degan yihiin. waxaad kaloo maqli doontaan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo mar kale ka hadlay qorshaha dagaalka ee dawladda Soomaaliya. ballanteenu Soomaaliya inaan dalkeena xoreyno ballanteenu Soomaaliya inaan mar dambe dhiig Soomaaliyeed lagu qubin jid Soomaaliyeed ballanteenu Soomaaliya inaan soo celino sharafta iyo karaamada Soomaaliyeed. wararka ka imanaya gobolka Gada ayaa sheegay in ciidamo lagu qiyaasay ilaa iyo 1,000 askari oo wata ilaa 30 gaari oo Ethiopian ay shalay iyo maanta ka soo gudbeen xuduudda Soomaaliya ee Dolow dhinaca gobolka Gedo. ciidamada ayaa la sheegay inay ka caawin doonaan ciidamada Soomaaliya duulaan cusub oo ku baaqay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka dhana ururka al-shabaab kadib qaraxii dadka badan ee ku dhinteen 14 Oktoobar ka dhacay magaalada Muqdisho. saraakiisha gobolka Gedo ayaa ka gaabsaday inay faahfaahin ka bixiyaan ciidamadan iyo ujeedadooda hase yeeshee waxay ku gaabsadeen in ciidamo Ethiopian ay horey u joogeen gobolka isla markaana uu socdo abaabulka duulaan xoog badan oo ka dhana ururka al-shabaab. Ethiopia ayaa waxaa Soomaaliya ka jooga ciidamo qayb ka ah kuwa AMISOM bishii Oktoobar ee sanadkii tagayna ciidamo badan oo aan qayb ka ahayn howlgalka AMISOM oo Ethiopian ah ayaa Soomaaliya ka baneeyay saldhigyo badan oo ay koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya kaga sugnaayeen. wararka ka imanaya gobolka Gedo ayaa sheegaya in ciidamo lagu qiyaasay ilaa 1,000 askari oo wata baabuur ilaa 30 ah oo kuwa dagaalka ah oo Ethiopianihi ay shalay ilaa maanta ka soo gudbeen xuduudka ay Soomaaliya iyo Ethiopia wadaagaan ee gobolka magaalada Dolow ee gobolka Gedo. ciidamada ayaa la sheegay inay ka caawin doonaan ciidamada Soomaaliya duulaan cusub oo ku baaqay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka dhana ururka al-shabaab kadib qaraxii ay dadka badan ku dhinteen 14 Oktoobar ka dhacay magaalada Muqdisho. wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan ayaa haddaba ciidamadan waxa wax ka weydiiyay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gedo Sheekh Maxamed Xuseen Isaaq waxaanu ugu horeynta weydiiyay dhaqdhaqaaqyada ciidan ee gobolkaasi laga soo sheegayo. aad baad u mahadsan tahay saaxiibow dhaqdhaqaaqyada guud ahaan gobolka ka soconayo waa kuwo loo diyaar garoobay la dagaalanka iyo ciribtirka cadowga ummadda Soomaaliyeed ee al-shabaab anagoo ka duulayno waaqa iyo amarada ka soo baxay madaxweynaha dalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhammaan guud ahaan ciidamada ku sugan gobolka Gedo waxay u taagan yihiin diyaar garow oo loogu talagalay in lagu sifeeyo ururkaas ummadda Soomaaliyeed baabi'inayo taa marka wax indhaha laga qabsan kara ma ahan waa loo diyaarsan yahay insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa waqti dhow goobo fara badan oo ay ku dhuumaaleysanayaan cadowga in laga saari doono lagana ciribtiri doono. wararka aan ka helayno dadka deegaanka gobolka Gedo gaar ahaan Dolow waxay sheegayaan in ciidamo Ethiopian oo fara badan oo kun gaaraya oo gaadiid ilaa 30 gaariya wata ay ka soo gudbeen labadii maalmood ugu dambeysay talaadadii shalay ahayd iyo maanta xuduudda dalka Ethiopia Soomaaliya ay soo galeen si ay u caawiyaan ciidamada howlgalka bilaabaya. wararka maxaad nooga biirin kartaa? aad u mahadsantahay ciidamada Ethiopia gobolka Gedo goob fara badan bay ka joogaan oo ay ka howlgalaan waxayna ka mid yihiin ciidamada Afrikaanka oo dalka Soomaaliya ka howlgalaya waana dawladda daras aan nahay soo gudbitaankooda iyo socodkoodana ma ahan mid cusub ciidamada loo qaadganayso xuduud intay u jirto 70 kilomitir bay degan yihiin oo maalin walba ay isaga socdaan socodka marka madaxweynaha dalkana deegaanada iyo dalalka uu tagay oo ka codsanaya in ciidamo hor la lagu biiriyo dalka ay ka mid tahay Ethiopia waxaanu xaqiijin karnaa annaga ka Soomaaliya ahaan ka maamul gobol ahaan iyo degmooyinka maamuladooda intaba iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gobolka ku sugan inay u diyaarsan yihiin cadowga ummadda daashaday dhibaatooyinkiisana markii u dambayso kuwa ma aragtay shacabka Soomaaliyeed ku wajahan halka markii hore la dhihi jiray cadow waxay la diraraan dawladda iyo ciidanka dawladda la dhihi jiray haddana ay si toos ah ay
shacabka Soomaaliyeed noloshooda oo dhan u baabi'inay in la dirno meelaha ay ku harsan yihiin aan oga ertirno ayaan u diyaarsanahay wararka dhinaca al-shabaab idinka soo gaaraya gobolka Gedo meelaha ay kaga sugan yihiin maxay sheegayaan al-shabaab sida la socotid awood ay hadda isku difaacaan haddii weerar ay ku yimaadaan malahan oo aan ka hayn inay cararaan ama qaraxyo ay sameeyaan taa marka waa wax cad deegaano fara badan oo hadda ay joogaan oo shacabka Soomaaliyeed oo la degan ay ma aragtay sheegayaan inay kala cararayaan oo qayb ka mid ah ay leeyihiin gaaladii baa nagu soo wajahan hal diyaar garoobo hal jihaado intay dhahaan haddana duurka iyo meelihii kale ay carari karaan oo ay cararaan taas waa wax cad mana suurtagelayso in al-shabaab goob ay degan yihiin inta duulaan lagu qaado ay isdifaacaan taa marka wax macnaa ma lahan laakiin waxaa muhiim ah dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo joogaan in ay u diyaar garoobaan al-shabaab la dagaalankooda oo marayo last game waxa la yiraahdo meesha ugu dambeysay oo aan rajaynayno insha Allah ta'ala waqti dhow in magacoodii waagi ay jireen uu noqon doono laakiin muuqaalkooda ay sii joogi doonin deegaanada annagu aan ka talino kaasi wuxuu ahaa gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gedo Sheekh Maxamed Xuseen Al-Isxaaq oo u waramayay Maxamed Colaad Xasan dhinaca kalena magaalada Muqdisho ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa maanta tababar u soo xiray 311 askari oo bilihii la soo dhaafay tababar ku qaadanaya xero ciidan oo lagu magacaabo General Gordon oo ay maamusho dowladda Imaaraadka Carabtu wariyeen Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan goor dhaweyd Muqdisho uga soo diray ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa maanta tababar u soo xiray ciidamo tiradoodu gaarayso 311 askari oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka kuwaasoo dowladda Imaaraadka Carabtu ay muddooyinkii ugu dambeysay ku tababaraysay xarunta General Gordon ee magaalada Muqdisho ciidamadan ayaa ah kuwa ay u dhameystiran yihiin dhammaan qalabkooda iyo saanadooda military waxaana xilliga ra'iisul wasaaraha tababarka uu soo xirayay garabkiisa taagnaa taliyaha ciidanka xoogga dalka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa ciidamada tababarka u soo xirmay u sheegay inay wadankooda difaacaan waxaana uu dhanka kale taliska ciidanka ku wargeliyay in ciidamadan kartidooda iyo waxqabadkoodu ay ku xirnaan doonto hadba sida ay ula dhaqmaan taliska ciidanka iyo saraakiisha Soomaaliyeed ee ciidankan hogaaminaysa maantana la idinku wareejinayo gacanta taliyaha iyo taliyayaasha ka hoos shaqeeya waxaan u sheegayaa ciidan wanaagsan kama soo hara talis wanaagsan sidaad ciidankaas uga warqabtaan ula dhaqantaan ayay ku xirnaan doontaa natiijada ay dagaalka ka soo hooyaan ballanteenu soo ma aha inaan dalkeenna xorayno ballanteenu soo ma aha inaan mar dambe dhiig Soomaaliyeed lagu qubin jid Soomaaliyeed ballanteenu soo ma aha inaan soo celino sharafta iyo karaamada Soomaaliyeed ballanteenu soo ma aha inaan soo celino ciidankii la dhihi jiray libaaxyadii Afrika idinku qabiil miyaad leedihiin idinku soo kama saraysaan qabiil iyo qabyaalad idinku soo maahidina cidda keliya oo dalku ku tashanayo soo dhalinyaradii ma ahidina dalka u haraysay waxaan idin leeyahay yaan jidka marna laydinka leeyahay taliyaha ciidanka xoogga waxaan ugu hambalyeynayaa maanta inuu la wareegayo 311 wiil iyo saraakiishoodii oo agabkoodii u dhameystiran yahay marka laga soo tago ciidamada 311 askari ah ee maanta tababarka u soo xirmay ayaa waxa hore u jirtay in dowladda Imaaraadka Carabtu ay hore u tababartay in ka badan 1,000 askari oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka si dowladda Soomaaliya ay gacan uga siiso ciidan awood leh oo ka qayb qaadan kara dagaalka lagula jiro ururka al-shabaab waxaana intaa dheer in dhowaan 100 askari oo ay tababareen dowladda Imaaraadka loo diray gobolka Shabeellaha Hoose si ay uga mid noqdaan ciidamada dowladda federaalka ee ka dagaalamaya meelo kamida deegaanada gobolkaasi dowladda federaalka Soomaaliya ayaa muddooyinkii ugu dambeysay waday dadaal ay ku ururinayso cududda ciidamada xoogga maadaama dowladdu ay ku jirto guruf dagaal oo ka dhan ah ururka al-shabaab kaasoo la filayo in dhowaan laga hirgeliyo meelo badan oo kamid ah gobolada dalka Soomaaliya Xasan Kaafi Qoyste
VOA muqdisho